السلام عليكم ورحمة الله وبركاته كسو دوادا مركلي جنالك عبدي جنال أنو كسو قد بنو حيالها إسلانها وحا أنفعيان دادك الصوماليات dad badan ayaa su-aal ay soo weydiiyey oo weli aan ka dhargin faallooyinkii aan ka bixinayay dalka Masar marka waxaan rabaa maanta inaan idiin sheego 5 qarash oo waaweyn oo ay tahay inaad ku tala gasho markii aad u guurayso dalka Masar safar walbaba wuxuu leeyahay qarashaadkiisa geedi walbaba wuxuu leeyahay hawshiisa laakiin wadamadu way kala duwan yihiin farqiba u dhaxeeya markii aad Kenya u guuraysid iyo markii aad u guuraysid dalka Masar waxaan aaminsanahay inuu dalka Masar ka qarash badan yahay markaad u guuraysid dalka Kenya oo kale sababtana waa idiin sheegaya anoo ku soo koobaya 5 waxyaalood ka hor intaan u gudbin wuxuu ku socdaa janaalku 10,000 oo subscribers marka ka qayb qaado oo subscribe gare janaalka share like tana hay loobin sababtoo ah waxay like ka caawinaysaa inuu gaaro dad badan oo u baahan information kan haddaad heshay la share garee waxaad adigu aad u baahnayd oo aad heshay si qof kalena uga faa'iideysto fiidiyoyada aan uga hadlayo dalka Masar oo waxaad ka heli kartaa fiidiyowga waxaan kaloo saarayaa halkan fiidiyowga intuu socdo waxa ku soo baxaya link aad raaci karto haddii aan sameeyna waxaad geli kartaa janaalkayga oo aad ka soo baari kartaa inta kadib qarashka koobaad waa iska wada garanaynaa oo waxa weeye family Soomaaliya markuu guurayo waa family weyn aabba iyo hooyo iyo caruurta average family waa 5 qof oo 5 caruur iyo 2 parent ama waalid ah 7 qof oo tigid goosanaysa waa wax weyn weeye marka waxa jira farsamooyin aad u adeegsan kartid saad u yarayso qarashkaas tan koobaad waxa weeyaan inaad baxdo off season ka waxyaal marka la yiraahdo waa wada ogtihiin dhamaantiin xilli June July bay guurtaa Soomaalida August 3 bilood waa 3 ugu qaalisan tigidhada iyo December soo 4 bilood inaad iska ilaalisid markaad guurayso saad u yarayso qarashkaas maalmaha talaadada iyo khamiistana aad tigidhka goosato go and back haddii aad soo laabanayso iyo haddii aad meesha ku harayso haddaad guurayso meeshaad ku haraysaa soo waa one way ticket sida badan marka inaad maalin talaada ama khamiisa u goosato iska ma garanaysaa isku day waa taladayda waana qarash la iska garanaya inta uu leeyahay qarashka labaad oo aad ku talagalaysid markaad meesha tagto waxa weeyaan dalka Masar wuxuu uga bedelan yahay Kenya oo kale guri markaad kiraysato waxa laga rabaa guriga kiradiisii oo bil ah waxa laga rabaa bil kale oo deposit ah waxa kale oo laga rabaa bil lacagteed oo qofkii guriga ka kireeyay uu ma garanaysaa ka qaadanaya dulaal soo waa 3 bilood ka soo qaad guri 500 ah kireysatay 500 oo kirada ahayd 500 oo deposit ka ahayd iyo 500 oo dulaal ah ama fiigi qofkii guriga ku soo helay waa expense asaguna markii lagu daro expense-yada kale separate hadduu yahay mid walbaba gaar yahay waa waxyar buu muuqanaya laakiin markii la isku geeyo wixii oo dhan waa weynaanaya taladeeda arka ku aadan waxa weeyaan marka in aad qof meesha jooga oo guri degan oo raba inuu guuro oo kale aad la gashid guriga ugu wareejiyo ama qof Soomaali ah oo guri ku leh meesha guriyo badan Soomaali baa ku leh Rixaab oo kale Madiinati oo kale guriyo Soomaali baa ku leh inaad ma garanaysaa ama qof guriga ka guuraya ama qof ma garanaysaa Soomaali ah oo is afgaranaysaan gurigiis aad qofkii toos u la heshiiso laakiin haddii aad carab guriga kiraysanayso alaaba qof dulaala ama agency ah kula socda qarashkaas marka
haddaad u baahan tahay inaad baajiso qaab noocaasaad ku baajin kartaa. waa qarashka kale oo aan kuu sheegayo weyn. qarashka saddexaad waxa weeyaan weli gurigii kama baxayno. waxaad taqaanaa markaad guri tagto, markaad waddan tagto, waa number 3. markaad waddan tagto in aad guri, waxay yidhaahdaan guryuhu mafruush iyo midaan mafruush ahayn. waa guri goglan oo alaabtiisa taallo, iyo guri aan goglanayn. guri aan goglanayn markii lagu yidhaahdo adigu waxaad taqaanaa guri aa ma garanaysa aad soo gadanaysid fadhigaagii, sariirtii, qadadii, frinjeerkii, bahashii makiinadii cuntada lagu karsanayo, wax saas adiga waxa iska normalka. laakiin masar waxay uga duwan tahay. masar marna waa kulayl, marna waa qabow. mar waa qabow aada seexan karin qabow daraadiis, waa winter. waa adoo ingiriiska Sweden joogoo kale weeyaan. soo waxaa u baahan tahay heater. 4 qol baa kiraysatay oo kale kasoo qaad, iyo fadhi. 5 waxaa u baahan tahay heater. sidoo kale waxaa u baahan tahay 5 qaboojiye. marka waxaa laga yaabaa inay isku jiraan oo kale qaboojiye heaterkii. marka winterka tahayna laga dhigaayo heaterka marka calaa xabu $1. 5 qol markii aad 5 heater iyo 5 qaboojiye ku xirto waa $5,000. kow, tigidhkii baa soo gashay. 2, kiradii gurigaad bixisay. 3, heater baa ku xirtay gurigii. another qarash, big expense. furniture-kiina waa kugu jiraa ogow. waa 3. waa another big inaad ka fikirtay waayo. arrinkaasa iska soo dhammaysay, waa soo xirtay. ciyaalkii baa tiri iskuulkii baan geynaya. waa qarashkii 4aad. waxa weeyaan in aad taa aniga xal uma hayo. tan aan kuu sheegay heaterka iyo bahalkii xal uma hayo. I have nothing to say about. laakiin saan kuu sheegay oo kale qof Soomaali oo kale haddii aad dhiil la gasho, waxaa laga yaabaa inuu guriga kaagaga tago bahalladii iyo macnaha asagu uu xirtay. Soomaalida waa ogtihiin, waa geedo badan yihiin. actually businesskaasna qofkii Masar jooga waan ugu baaqayaa businesska, ma garanaysaa, celiska wuuna jiraa baan u malaynayaa. isku wareejinta qofka inuu yidhaahdo bilheblaan guurayaa. haddii qof bilhebla soo degayo u yimaado, isku xir agency. qarashka 4aad waxaa weeye shahaadooyinka iyo bedelidda. Yurub oo kale haddaad ka timid, Soomaaliya oo kale haddaad ka timid, waa fine. xoogaa Soomaalida tasdiiqin iyo wax saasa safaaradda inaad tagto. laakiin ingiriiska oo kale, Sweden oo kale haddaad ka timid, shahaadooyinka ciyaalka wataan. shahaadooyinka waxaa la rabaa in la bedelo. waxaa lagu bedelayaa Arabic. safaaraddii baa la tegayaa, meel kalea la tegayaa, wasaarad baa la tegayaa, awqaafta baa la tegayaa. kidaa weye ugu yaraan halkii shahaado 500 meelahaasoo inay ku baxdo oo la bedelayo, si ciyaalkii ay classkii ay rabeen ay u fadhiistaan. taasna waa 4 oo way jirtaa. marka guud ahaan annaga haddaan Soomaali nahay, waxaa maqlaysaa hebel baa guuray haddana waa soo guuray. hebel baa guuray haddana waa soo guuray. maxaa keenaya sababta waxaa weeye markii hore aan la fikirin. waxaa la yidhi geed haddii lagu tafo orod, waxaa looga soo degtaa orod baa looga soo degtaa. so waxyaalahaasoo dhan ku xisaabtan adigoo kuu degan yahay hawshaas. oo macnaha qarashka 5aadna waxa waaye yacni dee adigana shaqadaa ka soo tegaysaa, maamadii shaqadii ba ka soo tegaya, reer guura baad tahay. yacni 2 bilood oo kale, bil kalena minus kale weeyaan. ayadana in la israacaana ku talinayaa, in qof la diro ama maamada in la tuuro la yidhaaho soco meeshaas macquul maaha. soo adigana shaqadaada inaad ka tagto waay. shaqadaada markaa ka tagtidna ayadana hawl waay. so
arrinkaas budget garayso intaada tegin. haddii videoga ku anfacay sidaan hore kuugu sheegay waxaad siisaa janaalka subscribe gare, thumb up, share. bana mahadsantihiin. Asalaamu calaykum.